halkan waa qabriga uu ku aasan yahay Cimraan oo ah Maryama binti Cimraan aabaheeda. taariikhda inta la ogyahay waa qabriga ugu dheer adduunka. wuxuu u dhisan yahay qaab dhismeed aad iyo aad cajiib u ah. sida idinkaga muuqata qolka qabriga waxaa ku dhagan aayado qur'aan ah iyo ducooyin. dad badan ayaa halkan waxay u yimaadaan in ay arkaan ama ay soo siyaartaan qabriga Cimraan. Ilaahay ha u raxmadee. qolka qabriga marka banaanka laga eego sidan buu u egyahay. aad iyo aad buu u dheeryahay. subxaanallah, weligay ma arag qabri ka dheer midka Cimraan. Ilaahay ha u raxmadee. dhinacanna waxaa ka xiga masaajid salaadaha lagu tukado. isagana masaajidkan waxaa loogu magac daray Cimraan. maasha Allah, waa masaajid aad iyo aad u qurux badan. waxaan ku tukaday salaada duhur iyo salaada casir. alxamdulilaahi rabbil caalamiin. dhammaantii waa meel aad iyo aad cajiib u ah. qaab dhismeedka qabrigana marka la eego wuxuu u dhisan yahay qaab aan weligayba arag. taariikhda Cimraan marka laga hadlayo wuxuu ahaa qof aad iyo aad u wanaagsan oo ku suntana alla ka cabsi iyo cibaado. xaaskiisana sidoo kale waxay ahayd qof doorsoon oo alla ka cabsi badan. waxay noolaayeen xilligii Nabi Zakariya calayhi salaam. Cimraan wuxuu geeriyooday intaanu gabadhiisa Maryama dhalan. iyadoo uurka ku jirta ayuu dhintay. Maryamana waxay ahayd gabar saalixad ah oo doorsoon oo cibaado badan. waana mid ka mid ah haweenka ugu fadliga badan ahlul jannaha. waana tii ugu wanaagsaneed inta dumar Ilaahay uume. Ilaahay isagoo arinta inoo cadeynaya wuxuu fi suuratu Cimraan inoogu yiri: yaa Maryamu inna Allaha astafaaki wa tahharaki wastafaaki calaa nisaa'il caalamiin. Maryamaay, eebbaweyne waa ku doortay wuxuuna kaa dhex doortay dhammaan haweenka caalamka. Maryama karaamadeeda waxaa ka mid ahaa in hadalka malaa'igta ay maqli jirtay. sidoo kale karaamadeeda waxaa ka mid ahaa in iyadoo aan meelba aadin oo iska tukanaysa raashin iska heli jirtay oo Ilaahay baa samada uga keeni jiray. Nabi Zakariya calayhi salaam markuu la yaabay ayuu wuxuu weydiiyey meesha ay ka keento raashinkan. iyana waxay u sheegtay: huwa min cindillaah, inna Allaha yarzuqu man yashaa'u bighayri xisaab. Ilaahay xaggiisa ayuu raashinkan iiga yimaadaa. Ilaahayna ciduu doono xisaab la'aan ayuu arsaaqaa. Nabi Zakariya wuxuu ahaa qof da' ah oo aan waxba dhali jirin. xaaskiisana sidoo kale waxay ahayd qof gabowday. laakiin Maryama Ilaahay raali ha ka noqday waxay sabab u ahayd in Nabi Zakariya Ilaahay dib u baryo oo Ilaahay dib u weydiisto inuu siiyo ama uu ku arsaaqo ubad baari ah. ugu dambeynna Ilaahay wuxuu siiyey Nabiyullaahi Yaxya calayhi salaam. Maryama waxay tusaale u tahay qof waliba Ilaahay subxaanahu wa tacaala si dhab ah u rumeeyey, daacadiisana laazimay, cibaado badan. waxay kaloo tusaale u tahay gabar waliba oo muslimada oo sharafteeda iyo dhoorsanaanteeda ilaalisay, Ilaahigeedana ku xiran. waana gabadha kaliya Ilaahay subxaanahu wa tacaala qur'aanka magaceeda inoogu sheegay. waxaana jirta suuradan oo la yiraahdo suuratu Maryama. Ilaahay subxaanahu wa tacaala iyada uun ku maamuusayo qisadeeda inooga sheekeynayo. Maryama binti Cimraan Ilaahay wuxuu ku arsaaqay walad bilaa aabba ah, waana Nabi Ciise calayhi salaam. mudnaan gaara bay ii ahayd inaan qabriga aabaheeda Cimraan, Ilaahay ha u raxmadee, aan imaado, aan soo siyaarto, u duceeyo, kuna dul aqriyo suuratu Maryama oo Ilaahay si gaara ugu magac daray gabadhiisa Maryama. anigoo Ilaahay subxaanahu wa tacaala uga baryay dhammaan gabdhaha muslimiinta ah inuu u dhowro una sharfo sidoo Maryama Ilaahay subxaanahu wa tacaala u dhowray una sharfay oo kale. Ilaahay dhammaanteenaba ha ina wada siiyo nasiib iyo calaf aan kaga dhageysano qisadeeda maalinta qiyaamaha markay dhammaan ahlul jannaha uga sheekeynayso. فأشارت إليه قالوا كيف نكلم